marka sida arkaysiin hadda waxa inoo samaysmay table keeni laakiin waxaan arkaynaa inuu just yahay qaab oo nooc kala oo meel iska taagan oo aan wax design lahayn marka hadda waxaan sameynaynaa design-kii baan u yeelaynaa hadda oo css teeni baan ku daraynaa waxaan arkaynaa halkan inay blue tahay header-keenu sidoo kale waxaan arkaynaa inuu rounded yahay text halkan inay cadaan tahay iyo sidoo kale inaan line daf u haysano background markaasi gray ah sida kan labaad ka afraad marka waxaan odhanaynaa haddaynu halkan tagno css file inoo samee waxaan u bixinayaa markaas aanu main laakiin waa inay ugu dambeysaa .css qaybtan iga xidh waxaan ku bilaabayaa marka hore body margin 0 deetana waxaan ku xigsiinayaa padding 0 sababtan saa ugu bilaabaya wax weeyaan markaasi inuu markaa bodygayga waxaan jeclay inaanu bilowga yeelan wax margina ama wax paddina oo markaasi halkaasi ku dhago hadda wax isbedela may dhicin sababtoo ah kumaynaan linki garayn filekan ka html-ka kumaynaan linki garayn markaasi css teeni halkan aan tegi doonaa waxaan odhanaa markaasi link rel style sheet href deetana waxaan gelinaynaa magaca la yidhaahdo filekeena main.css deetana waan soo xidhanaa markaan save idhi waxaa arkaysaan inay bartaasi ku dhegtay gidaarka shayga ugu horeyn markaa ku bilaabaya wax weeyaan aanu nidhaano h1 keena waxaad ka dhigtaa mid bluega horta gidaarkeenu kasoo yara durkinaynaa maadaama hadaynu eegna kan halkaasuu yaalaa marka waxaan odhanaynaa margin left 39 pixels ba iska dheh oo kasoo durkay colorka aan u sameynaynaana waxa weeyaan markaasi hashtag 6598f5 qaab markaasi oo color oo markaasi blue cadaan xogaayra ah okay marka waxaan ku xigsiinaynaa waxaanu haysanay table-keena wuxuu ahaa class wuxuu haystay la yidhaahdo container deetana waxaan odhanaa marka classka markaad haysatid doonaysid inaad style ku samaysid waxaad ku bilaabaysaa markaasi dot container deetana waxa aan ku bilaabayaa waxay tahay border collapse waxa ay qabataa markaasi collapse baan dabeetana odhanayaa waxa ay qabataa markaasi waxa isku nidaaminaysaa wax yar isku cidhiidhinaysaa spaceka markaasi uu table ku haysto dan wax yar halkan masaxo si aad aragtid marka hore saas usoo kala furfurnaa imikana waxay iskugu kaa celinaysaa marka tablekii oo space fiican si aad markaasi contentida kale ee website-ka ugu heshid waxaan ku xigsiinayaa markaasi margin top iyo right waxaad tiraahdaa 25 pixels 30 pixels waxaan kusii xigsiinayaa markaasi font size-ka waxaan odhanaa markaas 15 pixels ama 16 I think inay 15kaas wax yaryar ka dhigtay waxaan odhanayaa markaas iminka min width 400 pixels farqiga u dhexeeya width iyo min width wax weeyaan min widthku laakiin waxa uu sheegayaa markaasi balaca ugu yar ee uu markaasi yeelanayo table-kaygani yacni kama yaraan karo 400 pixels haddaan markaas intaa containerka ku yara daayo hadda waxaan bilaabayaa markaasi qeybtan sare markaa headerkaas ayaana header odhanay table headkaas intaa sare oo qeybteenaas table headka marka waxaan odhanaynaa waxay kusii dhex jirta container baan dooranayaa deetana waxaan kasii dooranayaa markaas table head deetana waxaan kasii dooranayaa markaas
tr yani kuwan ayaan markaasi hadda dooranayaa rowgaas background kan odhanayaa markaasi backgroundka waxaad iga dhigtaa isla colorkii bluegaha colorkaas wakaas backgroundkii baan saa ka dhignay textida laakiin colorkeeda waxaan ka dhigaynaa white #ff waxaan arkanaa markaas textidani inay markaasi dhinacan u yara janjeedho oo ay centerka taalo si markaa kuwan ay ula sinaato waan isticmaalanaa markaas text align left textideedu markaas inay noqoto mid dhinaca leftiga ka bilowmanaysa font weight-na waxaan odhanayaa farta waxoogaa wax yar waa inay bold haataa yara burburnaataa waxa ku xiga aan doonay inaan target gareeyo waxa weeyaan dhammaan th-ta iyo tr-ta ku jira markaasi waxaan leeyahay th-ta iyo td-ga dhammaan ku wada jira muxuu table-keena gudihiisa marka waxaan odhanayaa dot container th deetana e4 waxaad tirahdaa markaas paddingkeena waxay nooga dhigtaa markaasi top iyo right 12 pixels bottom iyo leftna waxaad ka dhigtaa markaasi 15 pixels waxaa arkaysaa markaas paddingkii markaas inuu bedelay oo ay space heshay oo ay textida waxoogaa dhinaca geesiska kasoo rago'day saasoo kale igu wada samee kuwan kalena td-geena container td padding 12 pixels top iyo markaasi right bottom iyo leftna waxaan odhanaa 15 pixels markaas waa kuwa soo yara kala faaftay intaana halkan dhaafin waxaan doonayay inaan qodob muhiima tilmaamo halkan waxaan arkayaa in aan shay isku mida ka wada bedelay labadanba th-teena iyo td-geena markan oo kale waxaan sameynay yani code fara badan baan qornay laakiin waxaan kusoo koobi karnaa markaasi inagoo nidhaana labadoodaba yani ka wada dhexaysiya waxaas hakad baa odhanaysaa deetana container deetana td deetana waxaad inaga masaxaysaa markaasi qeybtii hoose marka waxaan leenahay labadooduba ha yeeshaan markaas sifadan marka waxaan arkanaa inayna waxba iska bedelin laakiin imika haddaan hakadkan baabi'iyo waxaan arkayaa inay meeshii oo dhanba waalanayso waxaan doonayaa markaasi imika inaan target gareeyo rowskan uu ka kooban yahay markaasi t-bodygeenu waxaan odhanaa markaasi dot container t-body tr waxaan doonayaa markaasi inaan u sameeyo border bottom 1 pixel solid deetana colorkan wuxuu noqonayaa markaasi mid grey ah hadda waxaan arkanaa inay soo baxday markaasi laymanka oo markaasi greyga sidaan halkanba ku haysano laakiin keenan kale waxaa kaloon markaasi haysanaa in ka labaad yani ka afraad iyo haddii aynu markaasi sii wadnaba oo aan idhaahno ka shanaad ka lixaad inuu mar walba kaas markaasi xabad dhaaf ay u leeyihiin background grey ah sayn markaas arrintaa u samayn karnaa waxaan odhanaa markaasi css2 waxay leedahay qeyb la dhaha sudoku aynu isticmaalanaa waxaan odhanaynaa dot container dot t-body tr marka waa rowskeena oo dhan ma wada rabno laakiin waxa aan rabnaa tirooyinka dhabanka ah yani labaad afraad marka waxaan odhanayaa trnth of tape ayaad markaasi dooranaysaa deeta halkaa waxaad ku qoraysaa tiradii aad rabtay even ama odd
haddii aad rabtid ka ugu horeeya inuu kasoo bilowmo deetana ka saddexaad saas ay u socotana waxaa odhanaysaa odd haddii kalena oo aad rabtid ka labaad ka afraad ka lixaadna waxaa odhanaysaa even haddaynu furno markaasi hadda waxaan odhanayaa backgroundkeenu markaa waxa uu noqonayaa markaasi hashtag f3f3f3 waa idinkaa markaasi arkaya sida ay markaasi u noqotay haddaynu iminkan idhaahno halkan odd waxaan arkanaa inuu kaasi kii koowaad kasoo bilaabmay kii saddexaad si aan kuu tuso ilaa halkan inuu socon karo aynu ku darno markaasi hal row oo kale si aan markaasi ila aragtid si aan u jeedo adiga arkay inuu kii koowaad saddexaad shanaad uu saas markaasi noqonayo inaga masax marka intan ka ugu dambeeya halkana waxaad inoogu bedeshaa even save haddaynu ku noqono halkan waxaan arkanaa inuu markaasi line bluega uu leeyahay tablekenani marka waxaan odhanaynaa waynu odhan karnaa ka ugu dambeeya laakiin ka waran haddii iminka intaan ka ugu dambeeya ku samayno aad hadhow toole inta halkan tegtid rows kale ku dartid waxay noqonaysaa markastoo aad row ku dartid bayna andra css kaaga tegtid ka masixday ka ugu dambeeya ku dartid marka waxaan isticmaalnaa sidoo kale sudoku css waxaan odhanaa container tbody tr last child yani ka ugu dambeeya ilmaha ugu dambeeya ayaan markaasi sorry halkaa waxaan uga jeedaa tr last of tape deetana waxaan odhanaa markaasi border bottomkeenu ha noqdo 2 pixels solid deetana colorkan bluega ah inoo soo qaad markaasi wakaas hadda uu kusoo dhawaaday markaasi waxa kaliya timeka inaga dhiman waxa weeyaan halkan waxaan arkanaa inuu halkan round kasoo yeerayahay wax yar marka waxaan ku noqonaynaa tablekeeni oo halkan ahayd containerkeeni marka waxaan odhanaa border radius 5 pixels eber yacni labada qaybood ha kasoo noqdo markaasi mid round ah waxaan arkaynaa markaasi inayna hadda waxba isbedelin sababtoo ah laymankan markaasi halkan maraya ayaa markaasi qarinaya roundingkii markaasi uu inoo yeelan lahaa markaasi geesasku ay inoo yeelan lahaayeen marka waxaan ku daraynaa hal line oo code ah waxaan odhanaynaa markaasi overflow hidden yacni geesaskan ha qorsoonaadaan markaasi marka ay isku dul dhacayaan haddaynu ku noqono markaasi tablekeeni hore iyo kan waxaan arkanaa markaasi inay isku mid yihiin exactly ay isku mid yihiin kan waxoogaa waan soo weyneeyey sababtaa buu ugu eegyahay inuu ka yarawan yahay laakiin weli waxbaa dhiman waxaan arkaysaa halkan inuu leeyahay markaasi hadh yaroo dambe ama shadow uu leeyahay markaasi markaa tablekeenu marka waxaan odhanaa box shadow qeybta hore waa markaasi extra qeybta kalena waa wida marka waxaan odhanaa labada qayboodba eber inooga dhig deetana 20 pixels qeybta shishe colorka ay markaasi yeelanaysana waxaan odhanaa RGBA kalarada waxaan soo dhiganuun iyada oo markaasi la sameynayo iyagoo hexadecimal oo sidana iyagoo markaasi toos loo qorayo
oo magacii toos loo qorayo iyo iyagoo RGB markaasi ah red green blue mid kaloo markaasi afraad baa jirta oo markaasi qaybtan RGB eeda unbaad kusii daraysaa oo markaasi u taagan alpha oo qaybtii transparency ka ahayd markaas oo tusaale ahaan imko kale halkan haddaan tusaale ahaan kugu bixiyo qaybtan oo kale waa yara khafiif madow saa'ida maaha laakiin qaybtan waa madow marka eedaasi waxay maamulaysaa xaddiga transparency-ga markaasi colorka aad dooratay uu yeelanayo marka waxaan odhanaa RGBA bracket inoo fur eber 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 yani waa black redkiina eber ha noqdo greenkiina eber ha noqdo bluegiina eber ha noqdo laakiin qaybtii transparency-ga ayaan odhanaa 0.20 saan idhaahno markaasi eegno waxaan arkanaa markaasi inuu shadow kusoo darsamay tan imika halkan badiyo oon idhaahda 9 oo kale waxaan ku taaganay kii kale okay sorry kii kale baan ku taagnaa Kenya aan sameynay kumayna taagnayn aan ku noqdo halkan 0.9 markaan idhi waad arkaysaan yani si u badan yahay shadowga fuulay markaasi table-keena marka dad wax yar ka yaraysid waxaa arkaysaan si uu sii yaraanaya marba marka 0.2 oo kale that's enough intaas baan kusoo gabagabeynayaa markaasi casharkan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatay haddii aad wax su'aalo qabtid waxaad igu reebi doontaa qaybta markaasi commentiga fadlan haddii aad jeclaysatay muuqaaladan markaasi i dareensii inaad markaasi xiiseynaysid oo markaasi subscribe channelka like-na sii haddii markaasi aad jeclaysatay oo ay markaasi wax ku tareen muuqaaladanna fadlan ila socodsii waxay markaasi energy u tahay markaasi samaynta aan samaynaya markaasi muuqaaladani tani intaan kulmi doono muuqaalka dambe waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullah